السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka ahaa oo alaaba aynu ku faaqidi jirnay isla markaasina aynu ku soo bandhigi jirnay xisaabaha walaalaha Soomaaliyeed ay ku soo sadaqaystaan Maxamed Soomaali isla markaasina aan kugu soo gudbin jirnay warbixinadii informationada ku saabsan xaaladda caafimaad ee dhibane Maxamed Axmed Jeelani oo loo yaqaan Maxamed Soomaali daawadayaal maanta waxaan jecelahay oo aan rabaa inaan idin sheego inaan sameeyno xisaab xir guud oo ku saabsan dhaqaalihii walaalaha Soomaaliyeed ay ku soo yabooheen dhibane Maxamed Soomaali waxaan rabaa intaanan xisaab xirka sameyn ka hor dhowr qofood oo walaalaha Soomaaliyeed kamid ah oo maanta lacag u soo diray Maxamed Soomaali inaan sheego kadibna aan soo bandhigo xisaabaadkii guud ahaan ee walaalaha Soomaaliyeed ee ku soo sadaqaysteen intii ku baxda isbitaalka iyo waliba dhammaan waxyaabaha aad naga filaysaan oo aad naga sugaysaan hadduu Alle idmo waxaan rabaa hadduu Alle idmo inaan ku bilaabo xawaalada Hodan Global walaalaha lacagaha ku soo diray waa Safiyo Axmed Faarax waxa ay ku nooshahay Jidda Sacuudiga waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $100 qofka kale xawaalada Juba Express lacagtan soo dhigay waa Faa'isa Maxamed Aadan waxa ay ku nooshahay London waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 qofka kale xiga waa Nasro Xasan Shariif waxa ay ku nooshahay Muqdisho Soomaaliya waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $50 qofka kale xiga oo xawaalada amal lacagtan soo dhigay waa Maryan Maxamed Ismaaciil waxa ay ku nooshahay Saudi Arabia waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $150 qofka kale xiga waa Saamiya Cabdi oo ku nool Sweden waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay $1,000 waa $1,000 ay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay dabcan Saamiya waxa soo wakiishtay walaalo Soomaaliyeed oo ku nool Sweden Stockholm qofka kale xiga waa Qadro Maxamed Cabdulle waxa ay ku nooshahay sidoo kale Sweden waxay Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysatay lacag dhan $50 xawaalada Taj walaalaha lacagaha ku soo diray waa walaalaha Switzerland walaalaha Switzerland oo isku tagay waxa ay soo wakiishteen Yaasiin Maxamed waxayna Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysteen $550 waa walaalaha Switzerland oo soo wakiishtay Yaasiin Maxamed waxayna Maxamed Soomaali ku soo sadaqaysteen $550 hadaba Abu Axmed Jeelani dabcan walaalaha Soomaaliyeed ee xawaaladaha kala duwan soo dhigay deeqdan Maxamed Soomaali ay ugu tala galeen maxaad ugu ducay lahayd waxaan leeyahay walaalahay ilaahay ajri xasanaad Allah idinka siiyo jazakallahu khayr reer Switzerland iyo walaashay Saamiya oo joogto Sweden oo dad walaala Soomaali oo maartay soo wakiishteen lacag oo maartay $1,000 maanta ay soo gaartay walaashay waxaan leeyahay jazakallahu khayr Allah idin barakeeyo sidaad noo farxiseen Allah idinka farxiyo insha Allah jazakallahu khayr waa tahay daawadayaal hadduu Alle idmo waxaan jecelahay inaan idin soo bandhigo lacagihii guud ahaan ee walaalaha Soomaaliyeed ay ku soo sadaqaysteen taariikhdu marka laga bilaabo 1 bishan ilaa maanta oo ay ku beegan tahay 21 bisha January sanada 2016 guud ahaan lacagaha aan hayno dabcan halkan waa boonooyinkii isbitaalka Tawakkal ay lacagaha nagu soo siiyeen dabcan qaybta hore ayaad ku daawan doontaan oo aad ku daawateen sidaan filayo lacagaha boonooyinkii si ay sida kale yihiin iyo qaababkooda kala duwan dabcan hadda waxaan rabaa hadduu Alle idmo inaan idin sheego guud ahaan lacagta aan haysano laga soo bilaabo 1 bisha ilaa maanta oo 22 bisha January ah lacagaha aan haysano total ahaan waa $34,720 waa $34,720 oo ringid ahaan u dhiganta $145,700 ringid lacagta guud ahaan daawadayaal aad haysano nala socdo waa $34,000 oo ringid oo dollar waa $34,000 $720 waa $34,720 oo ringid marka loo bedelo ama lacagta Malaysia noqonaysa $145,700 ringid waa lacagtii guud ahaan na soo gashay dabcan lacagta naga baxday oo boonooyinkan ku qoran oo isbitaal Tawakkal aan siinay
oo qaybtii koowaad ee operationka ama caafimaadka maxamed lagu eegayana waxa ay noqotay $9,553 waa $9,553 waa lacagtii aan isbitaalka siinay oo ilaa maanta isbitaalka nooga baxday waa $9,553 oo ringid ahaan u dhiganta 40,129 ringid waa 40,129 ringid waa lacagtii naga baxday oo isbitaalka aan siinay markii aan marka isku keenno 145,000 oo ringid iyo 700 waa 145,700 oo ringid iyo 40,122 ringid marka isku keenno lacagta noo soo baxaysa waa 105,578 ringid haddii ringid ahaan aan u xisaabino balse si kale aan u dhigno lacagta dollar ahaan aan u xisaabino si adikana aad noola ogaataan waa $34,720 lacagta aan haysano lacagta naga baxdayna oo isbitaalka aan siinay oo inta ku qoranna waa 9,553 marka la kala gooyo waxaan haysanaa oo akoonka maxamed soomaali ku jirto operationka koowaad marka laga soo tago kadib $25,138 maxamed soomaali waxa uu haystaa waa $25,138 markii ringid loo bedelana waa 105,578 ringid dabcan waxaan filayaa inay ila fahanteen waxaan haysanaa lacagta guud ahaan markaan dollar u wada bedelo lacagta guud ahaan aan haysano waa $34,720 waa lacagtii maxamed soomaali lagu soo sadaqaystay marka lacagta isbitaalka nooga baxday oo isbitaalka aan siinayna waa 9,553 markaan kala goonno lacagta akoonkeena ku jirta waa $25,138 waa $25,138 lacagtaas ayaan daawadayaal haysanaa dabcan aaba axmed jeelaani ayaan rabaa inaa isaguna afkiisa ka xaqiiqsataan haya axmed جزاك الله خير الله كسي ولالكي أحمد الزاري لعقت هذا ودين شيء أحمد وصح لعقت هذا ودين شيء جايو أيان هيستا لعقت أصلا وأنا فرهي وجيران أنا ما ملكي صوته إن شاء الله واتهاي daawadayaal laakiin waxaan idin sheegaynaa caafimaadka maxamed soomaali waa faanoole fari kama qodna $10,000 lacag ku dhow waa $9,553 waxa ay ku baxday qaliinkii koowaad dhakhtarka interview aan la soo yeelanay ayaan idin soo bandhigi doonaa maxamed wuxuu u baahan yahay 2 sano oo baxnaano ah waxa sidoo kale u dhiman qaliinkii labaad oo lafta la jabil ahaa waxa kale oo dhiman physiotherapy iyo in socodkii wixii la baro xaaladiisa aad ayay macnaade maxamed u baahan tahay in kor lagu ogaado oo la soo caawiyo oo qof walba walaal Soomaaliyeed ah uu soo caawiyo lacagta aan haysano ma ogin inay ku filan tahay ma qiyaasi karno laakiin mar walba waxaan ku qasbanahay aniga iyo aabaha iyo dhamaanteenba inaan idin soo bandhigno waxaan haysano waxa naga baxay si mar walba aad ula socotaan xaaladeena isla markaasina barnaamijkan uu noqdo barnaamij transparency ama dhaxdhaxaada uu qof walba uu ku qanci karo fadlan aaba axmed jeelaani iyo wiilkiisa caawinaad ay u baahan yihiin soo caawiya gacantiina ay sugayaan waxaan idin ka codsanaynaa oo si islaamnimo ku jirto bini aadanimo ku jirto walaaltinimo iyo Soomaalinimona ay ku dheehan tahay inaad u soo garab istaagtaan oo mar rajadii maxamed soomaali aad dib u soo celisaan oo caafimaadkiisa aad kaalin weyn ka qaadataan fadlan arintaas ayaan idin ka codsanaynaa waxaan aad idinkugu mahadcelinaynaa walaalaha Soomaaliyeed ee soo garab istaagay aaba axmed jeelaani iyo wiilkiisa maxamed soomaali waad ku mahadsantihiin sida walaaltinimada aad u soo caawiseen mar walba gacantiina ay sugayaan waa family waa qoys aan wax kale ka dambeyn waa qoys dhibaato fara badan soo maray waa qoys hadda u baahan ummadda Soomaaliyeed in mar ay samato bixiyaan sidoo kale waa dhibane muddo ku xanuunsanaa Soomaaliya iyo Malaysia rajadiisa dib ayay u soo laabatay waxaan idin soo bandhigi doonaa asagoo idin mahad celinaya maxamed soomaali asagoo faraxsan oo ciyaaraya asagoo happy ayaan idin soo bandhigi doonaa insha Allah taala aniga qaybteedii iyo mutadawacnimadeedii iyo walaaltinimadeediina insha Allah way sii socon doontaa balse waxaan jeclaystay inaan idin soo bandhigo xisaabaha guud ahaan hadaa mar kale daawadayaal aan ku celiyo xisaabaha aan haysano dollar ahaan hadaa u bedelo waa $34,720
isbitaalka waxaan siinay oo operationka koowaad lagu sameeyey 9553 dollar lacagta guud ahaan aan haysano oo akoonka maxamed soomaali caawa ku jirta waa 25138 dollar ringgit haddaa u bedelo ringgidka Malaysia lacagta guud ahaan aan haysano ringgit ahaan waa 145700 oo ringgit lacagta naga baxdo isbitaalka aan siina ringgit ahaan waa 40122 ringgit lacagta aan haysano marka la kala gooyo ringgit ahaan waa 105578 ringgit daawadayaal insha Allah taala waxaan filaynaa inaad nala socotaan Aaba Axmed Jeelaani aan ku wareejiyo si walaalaha Soomaaliyeed oo ugu mahad celiyo isla markaasina duco wadareed ama duco guud oo hawada u soo mariyo hayaab جزاك الله walaalahayga Soomaali weyn meel walba aad joogtiin ilaahay ajri xasanaad Allah idinka siiyo run ahaantii maanta waxaan ka baxay arintii aad iyo aad u murugooda badneed oo yani laga ahayd wax laga naxo ama wax laga ooyo taasna maanta ilaahay ka soko waxa sabab ah walaalahayga Soomaali weyn meel walba ay joogaan waxaan ilaahay walaalahay ilaahay sidaad inaga farxiseen si ka daran Allah idinka farxiyo insha Allah ta'ala waxa weeyaan maanta waan dareemi karaa farxadda aan haysto ma ahan midaan soo koobi karo ma ahan walaalahay Soomaali weyn midaan awaalkooda gudi karo ama ilaawi karo maxaa yeelay maxamed wiilkiina muddo ayuu dhibaatoonay muddo ayuu silcay maantana farxad aan helay ma ahan mid la soo koobi karo ilaahay waxaan idinka baryaynaa idikoo maanta sidaan oo soo caawisan si ka daran inuu ilaahay idin caawiyo maxaa yeelay Aaba Axmed Jeelaani waa nin yani maanta da'yar oo dhalinyaro ah runtii ma jiro qof yani dhibaato haysanin oo iska oonay ama tuugsanayo laana qof walbo daruuf iidan ayaa meel fariisinayso oo yani tusinayso ma barneen aniga Facebook ma aqoon uma lahayn ma barneen yani qof yani maanta oo leebarkayga inaan hor istaag wax isii ma dhihi jirin nin waxaan ahaa shaqaysan jiray nin waxaan ahaa dadka caawin jiray nin waxaan ahaa maartii oo naxariista aad iyo aad ugu badan oo qof dhibaataysan hadduu arko kaalmeyn jiray marka tanna ilaahay mahadiis waaye wax walba ilaahay keen horta waxaa muhiim ah in la dhaho alxamdulillahi shukru rabbil caalamiin taasina ilaahay u sugnaatay jazaakallahu walaalahay marna ma idin ilaawi doonaan wiilkayga maxaa yeelay maanta nolosha mugdigaan ka baxnay waxaan ku jiraa nolosha aad iyo aad u farxad badan maxaa yeelay wiilkayga xataa runtii markuu arkay walaalaha Soomaaliyeed soo caawinayso runtii qalbigiisa mar gudihiisa ayuu isbedelay maxaa yeelay farxad ayaan ka dareemay daawadana waxay ku jirtaa markii aabaha caluushi saafi ay tahay wiilkan noqonaa ilaahay caafimaad uu siinaa caafimaadkan ilaahayo jiradan ilaahayo intii dhibaataysan oo maanta oo Soomaali oo muslim ah ilaahay waxaan u barinayaa dhibaatada inuu ilaahay ka bixiyo insha Allah walaalahay mar walba waan idinku soo celcelinaa ma idin ilaawi doono biidnillaahi kariim awaalkiina ma gudi karno waa mid aan ilaawi karin walaalkay Axmed Azaarini ilaahay hosin waxaan ugu bareenaa ajri xasanaad aan soo koobi karin inuu ilaahay siiyo walaalkay maanta wuxuu ahaa ninka garabkiisa u istaagay ilaa inaa hadda agteeda taagan oo fadhiyo garabkayga buuxinayo walaalkay asin waxaan leeyahay ilaahay waxaan kaaga baryaa waxaad ku farxdo inuu ilaahay gacantaada soo geliyo insha Allah sidaad noo caawisay adina si ka daran inuu ilaahay ku caawiyo intii muslim walaal Soomaali ah ama qurbi joog ha noqdo ama wadanka Soomaaliya ku noolaado walaalahayna Soomaali waa adin jecelnahay aad iyo aad aan maartay noo farxsan jazaakallahu khayr واتهي الله إذن أقبله دعادي أبا أحمد جيلاني ولاله الصوماليات وهوض أصومريي أبا أحمد جيلاني sidoo kale waa aaba Soomaaliyeed oo dhiban waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu isaguna ilaahay u fududeeyo dhibaatada uu iminka gabaabsiga u sii ah wiilkiisana Allah u caafiyo waxaan idin ka rajeynaynaa insha Allah taala inaad macnaa mar walba daawadayaal soo garab istaagtaan dhibane Axmed Jeelaani iyo wiilkiisa Maxamed Soomaali insha Allah taala walaalaha Soomaaliyeed lacagihii maantay ay ku soo sadaqaysteen aaba Axmed Jeelaani waa lacagihii aan xawaaladaha ka soo qaadnay maantay xisaabtii aan idin sheegayna ay ku jirtaa guud ahaan aaba Axmed Jeelaanina wuu helay sida aad macnaa idinka muuqata dabcan Axmed waa heshaa umleen lacagta maanta ma sha Allah lacagta waa helay jazaakallahu khayr walaalkay waa tahay daawadayaal aad ayaad u mahadsantihiin mar walba waxaan ka codsanaynaa inaad aaba Axmed Jeelaani soo caawisaan lambaradiisa shaashada ay ku qoran yihiin qofka laha u marina sadaqadu qofka baxsanayo qofka lagu baxsanayo wax ka dhaxeeya ma jiraan aaba Axmed Jeelaani ku soo sadaqaysta wax walba oo idinka soo gaa oo niyadiina sadaqa ahaan aad u soo niyeysataan waxaan idinka codsanaynaa mar walba inaad soo garab istaagtaan waxaan idin rajeynaynaa insha Allah taala qof walba farxadda uu maanta ka qayb qaatay mid lamida ilaahay inuu siiyo intaynu barnaamijkan oo kala dib hawada u kulmi doono waa aniga iyo aaba Axmed Jeelaani oo idinkaga tagayno sidaas iyo nabadgeliyo